السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada muuqaal cusub oo aynu kaga hadli doono xiriirka ka dhaxeeya bini'aadanka iyo xaqiiqo raadinta. Aadamaha oo dhan wuxuu Ilaahay ugu hor abuuray Nabi Aadan, wuxuu Ilaahay u abuuray suuradii ugu wanaagsanayd. Kadib abuuritaankii qolofta jidhkiisa wuxuu Ilaahay ku abuuray ruuxda. Waxa uu Ilaahay siiyay hibooyin iyo awoodo uu ku qaban karo hawlaha loo abuuray iyo inuu xaqiijiyo ahdaafta loo abuuray. waxaanu Ilaahay kaga soocay noolayaasha kale caqliga uu ku manaystay, waxaanu Ilaahay baray magacyada oo idil. kadib ayuu Ilaahay malaa'igta hor keenay Nabi Aadam, waxaanu ku yiri malaa'igtii, waxaad iga warantaan magacyada kuwan. kadib ayay malaa'igtii ku jawaabtay, Ilaahay baa xumaan ka nasahan, ma naqaano wixii aad adiguna bartay mooyaane, adiga ayaana wax walba og oo xakiim ah. kadib ayuu Nabi Aadan ku oranayaa u sheeg magacyadooda sida ku cad aayadaha Quraanka ah. waxaanu Ilaahay Nabi Aadan khaliifiya dhaxla uga dhigay dhulka, waxaana la amray malaa'igta oo dhan inay u sujuudaan Nabi Aadan. dhammaantoodna way u sujuudaan marka laga reebo Ibliis oo khilaaf badani ka jiro inuu markii hore ka mid ahaa malaa'igta iyo in kale, isagoo sababtana sheegay inuu ka fadli badan yahay maadaama oo isaga laga abuuray dab halka Nabi Aadan laga abuuray dhoobo. Nabi Aadan dabadii caruurtiisa iyo tafiirtiisa ayaa dhulka khaliif ka noqday. aadamaha Ilaahay uu karaameeyay waxaana u sakhiray dhulkiisa barri iyo badba, waxaanu ku arsaaqay risqiintiisa wanaagsan, waxaanu ka fadilay in badan oo khalqigiisa ka mid ah, waxaanu Ilaahay u sakhiray samada iyo waxa dhulka yaalla oo dhan. intaa kadib waxay bani aadanku arkeen in naftooda aad u jeceshahay guurguuritaanka iyo inuu socdaalo, waayo waxa lagu abuuray u fiirsiga iyo milicsiga waxa adduunka guudkiisa yaalla si uu ugu cibro qaato, iyo inuu ogaado waxa ka maqan ee uu ka yahay jaahilka, iyo inuu baadho waxyaabaha dhulka hoostiisa kaga qarsoon si uu uga warkeeno, sidoo kalena uga faa'iideysto inay ka caawiyaan noloshiisa. waxay dadku bilaabeen inay dhex muquurtaan badaha oo ay dhulka jihooyinkiisa kala duwan u gooshaan iyagoo raadsanaya risqooda, ama ay u ogaadaan oo ay u daalacdaan abuurta Ilaahay iyagoo daliilo iyo adillo u raadinaya weynida Ilaahay iyo farshaxanimada abuuritaankiisa si qalbigiisu ugu dago, yaqiinta iyo iimaankuna ugu siyaado. waxaad in badan Quraanka ku arkaysaan in Ilaahay adoomihiisa ku boorinayo inay dhulka dul socdaan si ay risqooda u helaan, sidoo kalena u bartaan qaabka uu Ilaahay u abuuray kownka iyo dunida, iyo inuu Ilaahay ka bilaabay wax aan jirin marka ay ajashoodu dhamaatana Ilaahay xaggiisa ay u noqonayaan. waxaanu Ilaahay ku yiri Quraankiisa kariimka ah aayadahan: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل sidoo kale waxa uu Ilaahay reer Quraysh ugu manna sheegtay inuu u fududeeyay inay Maka ilaa Yaman u socdaalaan si ay uga soo ganacsadaan oo uu ka nabadgeliyay gaajo iyo baqasho. intaa kadib wuxuu socdaalka iyo xaqiiqo raadintu noqday qayb ka mid ah nolosha aadamaha. waa kii imaamkii weynaa ee Imaam Shaafici ku lahaa gabaygiisii isagoo ka hadlayay faa'iidada uu leeyahay socodku: saafir tajid ciwadan amman tufaariquhu wansab fa inna ladida al-'aysh fi an-nasabi. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب.
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. laga soo bilaabo ilaa abuuritaankii nebi aadan ilaa maanta aadamuhu wuxuu sameynayaa horumar ah dhanka aqoonta kownka. waxay soo mareen marxalado kala duwan laga bilaabo helitaankii dabka, beera falashada, ugaarsiga, qodashada macdanta dhulka hoostiisa ku jirta. maantana basharku waxaabay tegeen hawada sare oo ay ka raadinayaan meerayaal aan dhulka ahayn oo ay ku noolaadaan. waxa qarniyadii u dambeysay adduunka ka dhacay horumarkii ugu ballaarnaa, kaasoo ay ugu muhiimsanaayeen cilmiga sayniska oo u fududeeyay inay noloshoodu sidii hore ka wanaagsanaato, iyo tiknoolajiyadda oo noqotay wixii ugu weynaa ee aadamuhu aqoontiisa yeesho. waxaana aasaas u ahaa daahka qaadistii korontada iyo shiidaalka oo nolosheennu aad ugu tiirsan tahay waaga aynu hadda joogno. waxaynu baranay curiyayaasha kemistriga oo curyihii u horreeyey uu ogaaday caalim muslina oo la odhan jiray jaabir ibnu xayaan, waxaanu ahaa aashitada dahabka lagu milo ee loo yaqaano aquarigia. waxaynu ogaanay inay jiraan noolayaal ilmaqabatay ah oo ay ka mid yihiin jeermiska, bakteeriyada, oo aynu ogaanay in qaar badan oo ka mid ay nolosheenna halis ku yihiin, halka qaar kalena ay yihiinba halka ay ka soo bilaabantay nolosha maanta dunida taalla. waxaynu ogaanay inay jiraan meerayaal aan dhulkeenna ahayn, in kowku ka ballaadhan yahay sida aynu moodayno. wuxuu adduunku marayaa xilli aqoonta aadamuhu heleen ay limilaamiso saacad kasta iyo maalin kasta oo timaada. fadlan haddii uu muuqaalka ku cajabiyey la wadaag saaxiibadaada, sidoo kale taabo suulka like buttonka. wax allaala wixii aad fikir noo haysana waxaad noogu reebtaa sanduuqa loogu talagalay faallada ee comment boxka.